Bismillahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Meel kasta oo aad naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijyadii aad uga barateen CT Plus Soomaali. Barnaamijkeenan maanta oo ah barnaamij aad u kooban waxaynu kaga hadlaynaa qolooyinka scammerska loo yaqaano ee dadka ku dhaca dhinaca telefoonka iyo internetka oo maalmahan aad ugu soo badanaya wadanka Canada, dadkana soo wacaya aniga qudhayda oo ay soo waceen oo aan idin maqashiin doono codkii ay ii reebeen. Dad badan oo ku nool dalkan Canada ayaa waxaa dhibaato ay kala kulmaan dad dhinaca isgaarsiinta isku daya in dadka ay ku dhacaan, kuwaasi oo adeegsada farsamooyin kala duwan oo casri ah. Waxay dadka ay bartilmaameedsanayaan ay inta badan ku xushaan hadba waxa ay is leeyihiin dadkaasi waa ay danaynayaan. Inta badan dadka wadankan Canada waxyaabaha ay ku bartilmaameedsadaan waxaa ka mid ah alaabo been ah oo ay sheegaan in ay qaab raqiis ah uga iibinayaan, amaba sidoo kale xiriir dhinaca jacaylka ah oo dhinaca internetka ama isgaarsiinta ah oo ay la sameynayaan, oo ah waxyaabaha ay inta badan dadka wadankani daneeyaan. Dadka soo galootiga ah ee wadanka ku cusub ayaa iyaguna dhibaato kala kulma qolyahani, waxaana dadkaasi inta badan ay ku bartilmaameedsadaan arrimaha la xiriira dhinaca socdaalka. Maadaama iminka lagu jiro xilligii canshuuraadka ee wadanka Canada, ayaa wax maalmahan dambe aad loo dareemayaa inay soo badanayaan taleefanada iyo iimaylada ay dirayaan qolyahani oo iska dhigay inay ka socdaan waaxda canshuuraha ee wadanka. Sidaan horey dhowr jeer qoraallo iyo muuqaalaba uga sameynay, qolooyinkani ma isticmaalaan oo keli ah luqadaha wadankan looga hadla ee Ingiriiska iyo Faransiiska, ee sidoo kale waxay isticmaalaan luqadaha ay is leeyihiin dadka ay bartilmaameedsanayaan oo ay ku hadlaan. Maalmihii ugu dambeeyay sidoo kale waxay aad u isticmaalayeen taleefano gudaha ah oo u eg in ay yihiin gobolka markaasi ay qofka ay bartilmaameedsanayaan uu ku nool yahay, taasi oo fududaynaysa in qofku uu si fudud telefoonkaasi uga jawaabo, sababtoo ah waxa uu u malayn karaa in telefoonkaasi uu yahay mid qofka muhiim u ah. Waxaa sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay ay dowladdu ka digaysay inay iska ilaaliyaan qolooyinkaasi oo qaarkood ay iska dhigayaan in ay dadka u fududaynayaan dhinaca tallaalka, iyaga oo qofka weydiisanaya in xoogaa lacaga uu bixiyo si loogu dedejiyo tallaalka. Haddaba waxaa goordhow idiin soo gudbin doonaa qaabka looga hortago iyo haddii ay dhacdo in aad shabaqa ugu dhacdo qaabka aad uga bixi karto. Hase ahaatee marka ugu horey waxaan rabaa inaad maqashiiyo fariin ay maalnimadii shalay ahayd ii reebeen kadib markii aan telefoonka ka qaban waayey. Fariintaasi oo ah mid mashiin ah, hase ahaatee iyada ay u isticmaalaan qaab dabin ahaan ah oo qofka ay inta badan u reebaan, isla markaana ay ugu hanjabaan una sheegaan qofka inuu dib telefoonka u soo waco. 9. Enforcement actions, which has been executed by Department of Justice against your social insurance number. Ignoring this would be an intentional attempt to avoid initial appearances before the magistrate judge or exempt jury for a federal criminal offense. So before this matter goes to federal courthouse or you get arrested, kindly press 1 and speak to an officer now. I repeat, press 1 to speak to an officer right now to avoid further actions. Sida aad codkaba ka dhageysan karto, codkaasi oo ah dabcan mid mashiin ah, waxaa ka muuqda hanjabaad iyo cabsigelin ah in marka ay iga rabaan in inta aan qalqalo isla markaana aan sameeyo waxa ay rabaan. Hase ahaatee marka ay dhacdo in fariintani oo kale aad hesho, marnaba ha raacin tilmaamaha ay ku siiyaan, waayo waxay rabaan inay shabaqa aad ugu soo dhacdo. Qaabkee isaga ilaalin kartaa in aad shabaqa ugu dhacdo qolooyinkani? 1. Marka ugu horeysa waxay sameeyaan waxa ay kaa soo raacayaan mobilekaaga ama kombiyuutarkaaga. Waxa ay inta badan sameeyaan in ay xanibaan kombiyuutarkaaga ama telefoonkaaga, kadibna inta ay ku soo wacaan ay ku yiraahdaan waxaan rabnaa inaan kombiyuutarka kuu xallino. Waxaana ay raadinayaan waxay tahay inay si fiican u sii dhex galaan kombiyuutarkaaga si ay kuu dhacaan. Sidaa daraaddeed marnaba ha raacin tilmaamahooda. 2. Marnaba ha siinin macluumaadkaaga gaarka ah qof kaa soo wacay telefoonka, gaar ahaan inta badan qolooyinkani marka ay ku soo wacaan waxa ay hadalka ka bilaabaan magacaaga oo saddexan. Waxay horey u haysteen magacaaga, waxay tusaale ahaan ku oranayaan
qofkani ma yahay hebel 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 waxay kaa rabaan inaad tiraahid haa halkii aad haa ka oran lahayd ha oranin haa ee waxaad tiraahdaa waa kuma qofka ila hadlaya markaad taa ku celiso ayay bilaabayaan inay hadalkii ay dib u sii wadaan waxaadna halka ka fahmi kartaa in iyagii ay yihiin waxaad samaynaysaa in telefoonka aad ku damiso marnaba ha siinin macluumaadka la xiriira bangigaaga iyo sidoo kale gurigaaga iyo adresskaaga iyo waxyaabaha gaarka ah 3 inta badan waxa ay qolooyinkan dad ka soo raacaan programyada aan gadano iyo kuwa aan ku shubano kombiyuutarka iyo mobilada haddii ay dhacdo inaad iibsanayso program ama barnaamij isku day in aad hubiso in barnaamijkaasi uu yahay mid xaqiiq ah ama la hubo isla markaana ammaan ah si aadan ugu dhicin in iyagii inta aad program ka gadato kadibna kombiyuutarkaaga aad ku shubto halkaana ay kombiyuutarkaaga waxay rabaan ay ka samaystaan ama mobilekaagaba hasaahati haddii ay dhacdo in aad shabaqa ugu dhacdo oo ay dhibaato ku geystaan dhinaca dhaqaale waxa aad samayn kartaa tilmaamooyinka soo socda isla markiiba waxaad la xiriiraysaa bangigaaga oo aad u sheegaysaa in arrintaasi ay jirto sidaana ay tahayna la bedelo dhammaan macluumaadkii aad siisay si looga hortago inay mar kale haddana ay dhacaan amaba ay dib kugu soo laabtaan waxaad sidoo kale samayn kartaa in aad la xiriirto xafiisyada kuu dhow ama goobaha laga caawiyo dadka iyo sidoo kale inaad booliiska la xiriirto oo kale waxyaabaha kale oo aad samayn karto waxay tahay inaad isla markiiba hesho in xal aad u hesho kombiyuutarkii amaba mobilekii ay markaa dhexgaleen sababtoo ah weli waxaa ku dambeeya raadkoodii inta ayaan rabaa inaan muuqaalkan kooban kusoo gabagabeeyo iska ilaali in qolooyinkani aad shabaqa ugu dhacdo kana ilaali saaxiibkaaga aad jeceshahay ee ku nool waddankan sida daraadeed la wadaag muuqaalkan qofka ku cusub waddanka ee laga yaabo inuu si fudud ugu dhaco shabaqa qolooyinkani oo inta badan iska dhiga inay dowladda ka socdaan inta badanna dadka waddanka ku cusub waxaa laga yaabaa marka magaca dowladda ay maqlaan ama loo sheego in laga socdo waaxaha dowladda waxaa dhacda inay qalqalaan isla markaana ay wixii la weydiiyo ay ka jawaabaan si taasi aysan u dhicin fariintan la wadaag ama u dir saaxiibkaaga aad is leedahay waddanka waa ku cusub yahay si uu isaga ilaaliyo